siyaasi Cabdilaahi Axmed ayaa xisbiga talada dalka ay ku eedeeyay in ay olole aan waqtigiisa gaadhin ay ilaa hadda ku jiraan sida warkaasi inoogu haya wariyahayaga Faysal Yuusuf Kacaan. Cabdilaahi Axmed Maxamed oo ah xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani ahna xubin sare oo ka tirsan hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani waraysi gaar ah siinay telefishinka caalamiga Waaberi TV waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah. Cabdilaahi Dahab waxa uu sheegay inuu dhaliilsan yahay xisbiga talada haya ee kulmiye iyadoo lagu jiro waqti abaare in xisbigaasi uu dalka ka wado olole siyaasadeed kaas oo ku dhaliilay gurmadkii xisbiga talada haya ee kulmiye uu ka geystay deegaanada bariga ay abaaruhu ay ka jireen waxaana hadaladiisii kamid ahaa dadka kale ay aad ugu mashquulsan yihiin oo aragteen xaflado ay leeyihiin hebel baa soo galay hebel baa ka baxay kana yimi keera yimi xilli waliba aad aan ugu xumahay afayeenkii xisbigaasi intuu isu soo taagay maalin aan dhaweyn oo 3 bilood laga joogo waxaan war ku bixinaynaa maanta laga bilaabo olole xafladda ma aanu qabanayna ilaa abaarta laga baxaya ilaana jirin taas waxay ku beegnayd maalin aanu burcad tageynay qoraal ay soo saareen oo yiraahdeen xisbiga kulmiye wuxuu goostay inaan olole gelin iyagoo baqdin ka qaba in burco wafdiga ballaarina tagay birgan abaaro tagay nabi ahayd ay aad loo soo dhaweeyo warqadaasi sidaas ku soo baxday kulmiye marka hore dadka been buu sheegay haddana dadka iyagoo noolba been buu sheegaa dadkuna waxa weeye warbaahinta iyo sawirada isku nabnabay iyo waxa waxba ka jirin ayuu ku khaldaa shalay bay warqada ka soo baxday ahayd xaflad qabanayna xaflad damban qabanayna ma jirto maantana waad arkaysaano waa wada xaflad iyo wada safar doorasho intaas ku jiraan ummadan uma jirnaxayaan umana arkaan sidaynu aragno ma arkaan wadanka ilaahay noo sahlo waxa ka jira abaar aad u weyn oo ognahay abaarta magaceedu dad badan ilaahay carabkooda uu ku tiro kulmiye loo bixiyay abaarta kulmiye dad badan oo aan soo jirin baa isugu yimi ku kulmay isku arkay xilli qodaan kulmiye farfadhada joogtana way timi kulmiye loo bixiyay abaartan waxay ahayd anigu sidaan in badan ka dhawaajiyay in sidan si ka mukroon oo ka weyn abaartan loogana fakaro loona waajo qaranka waxaan walwal badan iyo walaac badan aan ka qabnaa qaabka abaartan loo waajahay abaartani dhul ballaaran bay haysataa deegaan badan bay ballaaran bay haysataa ilaa hadda idaacadihii qaranka TV-gii qaranka warbaahintii xukuumadda kulmiye isticmaalaysay dhammaan hoostay dhigtay abaarta arrimaheedii. Faysal Yuusuf Kacaan, telefishinka caalamiga Waaberi magaalada Hargeysa.